boob baa jira dhul boob baa jira warkaasi magaalada inuu dhex yaallo waa la socda waana filayay su'aasha aan horta in yar ku dul istaago arrimaha dhulka ee dalka Soomaaliya horta markii u horeysay ee sharci dhul loo samaysto sharci aan keenin dhaqanka ahayn niman Italian oo koonfurta ku habsaday baa 1912 u samaystay sharcigaasina wuxuu ku wajahnaa sidii ay asandooyinka iyo dhulka wax soo saarka ah kambaniye ay leeyihiin u siin lahaayeen markii dambana meelihii degaamoobay ee Muqdisho ka mid ahaayeen bay sharciga ku dabaqeenayna nooc kale isagoo ah dawladihii isdaba socday ee ka mid ahayd dawladii rayidka ah way ku feel garowday ama way u suurtagali weyday in ay sharci geeyaan baarlamaankii Soomaaliya tii kacanka timi oo sharcigeeda iyo cududeedaba la timi kacankii cududiisana waa watay sharcigiisana waa watay maxaa la yiri wadaadku kitaab wax ku banaysto wata meex 1973 sharci bay meel marisay dawladii kacanku waxaan u maleynayaa in la yiraahdo sharciga 41 inuu yahay 8 sharci number 10 la yiraahdo waa la meel mariyay oo arrimaha dhulka lagu maareeyo marka dhulka Soomaaliyeed la boobayo hadii ka xamar aad ku goobtana waxbaynu iska oran hadii aad ka dalka u sheegaysana waxbaynu iska oran guud ahaan waa dhul dawladda Soomaaliyeed ay lahayd ka berbere ee hadda dekada weyn ee aad aragtay ay ka jirto waa halka aad tiriwad ka soo jeedaayo waxba uma matashide anigu halkan waxaan u fadhiyaa inaan ahay mas'uul dawladda federaalka Soomaaliyeed ka berbere ku yaala ee garoon kale ee diyaaradaha leh iyo kii Hargeysa ku yaalay iyo kuwan Garowe iyo Gaalkacyo ku yaala iyo Boosaaso iyo ilaa iyo Dhuusamareeb oo xarun weyn oo ahaan jirtay ciidamada ilaa iyo Kismaayo dhulkaas oo dhammaan waa dhulkii dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen dawladda Soomaaliyeed ayaan daro ama duruuftaaba keentay in dawladnimadeena intay in dhulkii horta xamar aan soo gaadhin ee dalka cidhifyadiisa ka jiray ay maanta ka arrimiyaan oo ay maareeyaan oo ay wax ku meel mariyaan maamulada meelaha ka jira waa xaqiiqo jirta oo dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay la nooshahay beledka xamara aynu wax iska niraahan 300 milyan oo muwaadiniinta Soomaaliyeed baa ku nool wuxuu la baaxadigayaa culays weyn oo ballaaran aad baan maanta uga fikiray bal su'aalaha inaad i weydiin doontaan magaaladan ugu yaraan 500 ee dabaq ee min 20 ay ka socoto sewage systemkeedu waa sidee ama bulaacadaheedu boosaneerooyinkeedu xaggay aadan inaad i weydiisaan waa filayay halista u weyn 3 milyan oo ummadda Soomaaliyeed soo foorsaartay ka mid anta dhulka kugu soo noqdo dhulka la boobeed maqlayso waxa kamid ah bari inaad tagtaan waan rabaa maalin ma maqlayseen xabaalay dawladii qoratay fariic billah horta in meyti iyo xabaalo la siyaasadeeyo arrin dhaqanka iyo diinta iyo gobonnimada iyo dawladnimada bal kulli daweey xaruntii halka marka aad marayso hospitaalka magaca leh warxasan maxamed ciise yardimeeli markaad ka leexato meeshii aynu dadka ku aasi jirnay marka aynu gaari weyno meelaha kale oo nafta aynu halkan ku ilaalino horta deer weyn oo casriya ka dhisan xarunta ninkan hore u aqoonna waxay ahayd xarun ay leeyihiin ciidamada badda qaranka Soomaaliyeed dhismo weyn ayaa laga dhisayaa waana diirinta wasiirka gaashaandhiga u tago soo booqda aydu kula talinayaan xabaalihii la iibsanayay waxa lagu bedelay barnaamijka ka warrama ciidamada badda ee Soomaaliyeed ayaa waxay u noqon doontaa xarun loogu adeego wax badan looga qabto waa ciidamada la rabo in cadawga badeena soo maagay bari aan fogeyn iyo ka soo maagi doonaba iyo maraakiibta batroolka inoo qodaya iyo badihii lagu daarin jiray
adduunka waxa sun jirta iyo khayraadkiina la rabay in la xaalufsado ciidamadii la rabay inay difaacaan baa horta xarun looga dhigay adeer lama boobin xarunta mirnaaya laakiin waa banaan wada marba xarun ha u guurina ma ku warrama inaad miditadii bixisaan laakiin waxaa ka fudud inaad horta aan iswarsanay su-aashaadaad lahayd ana jawaabteedan leedahay ii kaari way dhammaatay su-aashaadii dhul kaloo badan baa jira ana idiin sheegayay dhul kale oo badan baa jira oo dad ku dhow 10,000 oo muwaadiniinta Soomaaliyeed loo sharciyeeyay qorataana meesha la yiraahdo Oodweyne iyo maxay ahayd Bangalaha iyo Soonakee ilaa iyo shirkada dusheeda inaad dhageysanaysaan filaya adiga su'aashay weydiiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa loo sharciyeeyay oo degan doodo badan oo la qaba ayaa jira dalkani 35 sano muddo ku dhow ayuu bilaa dawlad yahay oo xaaladiisuna ay aragtay dhulkaasina waxay u badnaayeen dhul militarigu ay lahaayeen iyo hay'ado hadan magaalada dibadda uga baxay muwaadiniinta Soomaaliyeed baa la dejiyay ra'iisul wasaare dhulka aleedahay muwaadiniin Soomaaliyeed la dejiyay dhul dawladii Maxamed Siyaad Barre iyo dawladii ka horeeyay ay dokumenti ku bixiyeen ku jiro aad hadda siisan raalahow waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaare su'aashaas inaad ku laabatid waayay ka hadar aan ku idin dhameystireen ma ay u daayo odaga ha galay dikaarsh wixii dhiitar soo gali doonaa waxa jira dhul sida aad ogtihiin hadda 300 oo milyan oo dollar lagu maalgelinayo waa dhulkii bangiyada ee halka jasiira dhinaceeda ah 300 oo milyan oo dollar baa lagu maalgelinayaa waana laga kireeyay dikaarsh waxa laga yaabaa in maskaxdu ay isweydiiso war hudheel muxuu noo taraa dalka yaaban baanu bannahay wal isweydiin kara Soomaa dal baynu nahay kun cadow leh kun saaxiibna leh yeelan karana berri ka maalin haddii madaxweyne adduunka ka yimi oo aynu dana kale nahay qaran uu rabo inuu ina soo booqdo horta meeshii uu habeen ku hoyan lahaa xamar kuma taalo haddaad leedihiin xalanaha u dhaxana waa halkeed meeshii ay habeen ku hoyan lahaayeen xamar kuma taalo 300 oo kun oo muwaadiniin Soomaaliyeed baa xamar cidhifyadeedana ku nool barakacayaalna horta taana ogaada magaaladan dhexdeeda dood baa iman karta oo oran karta war dadkan guryaha la dejiyay sideeba xaq ugu yeesheen Soomaaliya oo dhan baa waxa wada leh Soomaaliya iman karto 35 sano ka bacdi muwaadiniintii meesha ku noolaa ee waayuhu ay keeneen ilaa dalkan waxa ka dhacay demographic shift baa ka dhacay waxa qaxayo dibad aada iyo wax gudaha jooga iyo wax la eedabayna u kala baxnay in muwaadiniinta loo sharci waliba arrimaha dhulku saameyn aad u weyn bay ku leeyihiin arrimaha amniga oo nimanka cadawgii meelaha mugdigu ku jiro wadooyinku aanay gelin dawladdu aanay ka aga dhaweyn aan soonaysnayn aad bay ugu gabadaan wax fara badan oo aydan ogeyn oo amniga la xidhiidha oo ummadda lagu haligayo ayaa arrimaha dhulka la xidhiidha waxa jirta dhul dawladdu ay leedahay oo muwaadiniinta Soomaaliyeed laga kireeyo oo dulmi looga kireeyo ayaa jira anigu aragtidan qaba marka waxa weeye magaalada Xamara marka dusha saa uga eegto 3 nooc bay u kala baxdaa dhulalka marka dib aan ugu noqday dhulal la kireeyay oo sharci lagu kireeyay dhulal hay'adaha dawliga ah hay'adda sodma meesha la yiraahdo quruxda badan Soomaaliya dad baa deganaa arrimaha dibadda iyo planning hadda tagto dad baa deganaa tan waxbarashada hadda la dhisay dad baa deganaa niyaho marba talaaba la qaadaya talaaba la qaadaya sharciyada dhulka ee magaalada Xamar ninkaasi dooda uu sheegayo dood ka sii horeysa jirto muwaadiniin Soomaaliyeed
oo ku dhaqan magaalada cidhifiyadeeda oo beero yaryar ku leh oo xoolo yar ku dhaqdo oo carisho ku leh baa xoog lagaga kiciyey oo la yiri waa la qaramaynaya rag baa guryihii ay lahaayeen inta lagala noqday la yiri kacaanka barakaysan baa la wareegaya waayaha dalku uu soo maray wuu farabadan yahay